waa waqti qarannimadii qabiil liqay, qabiilkiina qoys liqay, qoyskiina qof liqay, qofkiina quud liqay. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii kasmo iyo kaskaaga qaybtiisii labaad. qormadan waxaynu kusoo qaadan doonaa maasada magaceeda la yidhaahdo habilaawe oo soo baxday 20kii bishii 6aad sanadkii 2015 oo ka mid ah taxanaha maasooyinkii ka dhashay qabyaaliga iyo qabyaalad la dirirka. qisadaas oo bilaabantay 2014 arrintu waxay ciin daaqday markii aan bulshada ku waaniyey in la kala sooco qabiilka iyo siyaasadda. siyaasadda aan doonayay in qabiilku ka xor noqdo waa siyaasadda qofaysan, waa siyaasadda kooxaysan, waa siyaasadda qabiilaysan. doodihii iyo dagaalkii qaboobaa ee halkaa ka dhashay weli waa mid socda. waxaa dareenkaa ka soo baxay maasooyin dhowr ah oo tanaynu maanta soo qaadanaynaa ka mid tahay. inta aynaan u gudbin maasada waxaan ka yara hadlaynaa dibindaabyada danaystayaashu ku hayaan waxa loo yaqaano dowladnimada. danaystayaashu waxay qarannimada dadweynaha uga dhigeen baadi maqan oo subax kasta oo timaada la baafinayo. si taasi u noqoto wax laga aqbalo waxay sawirka qarannimada inooga dhigeen qof iyo magacyo si aan loo dareemin yoolka dhabta ah ee shiishkoodu haysto. si qarannimada dhabta ahi u noqoto baadi maqan oo aan la helin waxa ay ku dadaalaan inay ku fogeeyaan helitaankeeda inay si qabyaaladaysan u adeegsadaan qabiilka. waxay iska dhigaan qaar qabiilka naf u haya oo kaalmaynaya oo midnimadiisa ilaalinaya, laakiin qabiilka laftiisa ayay u sii kala furfuraan qoloqolo hoose iyo ardaa ilaa ay gaadhsiiyaan inay kala jejebiyaan jufo magta iyo qaadhaanku ka dhaxeeyo. waxaasoo dhan waxa ay u sameeyaan waa dhadhamo iyo hunguri maalmo ah. waxa xusuus mudan iyo dhugasho 40 jirka maanta joogaa inaanu waxba ka aqoonin qarannimo. waxa uu ku barbaaray oo ku caqliyaystay fawdo iyo nolol muran badan oo qadhaadh, nolol miidaamaha iyo jariska xoornimada adduun lagu iibsado, waqti fekerka bulshadu aanu dhaafin qoladayda, qoyskayga iyo qudhayda. waayahaas uu ku indho dilaacsaday welina uu dhex taagan yahay. waa waqti qarannimadii qabiil liqay, qabiilkiina qoys liqay, qoyskiina qof liqay, qofkiina quud liqay. waa waqti runtii beeni qabsatay, daacadnimadii dulmi qabsaday, aaminkii sagsaag qabsaday, mas-uulkiina musuq qabsaday, garashadii gudcur qabsaday, nabaddii colaadi qabsatay, fariidnimadii doqonnimo qabsatay, cilmigii jahli qabsaday, muuminkii munaafiq qabsaday, miyirkii waaliye qabsatay, deganaantii fudayd qabsaday, xaaraantiina xalaali qabsatay. waa waqti xidhe iyo xurma yaraatay, waa waqti xishood iyo xaya yaraatay. waa waqti aqoon-yahanka maanta caamadii hore dhaanto, oo maalqabeenka maanta saboolkii hore dhaamo, oo ehelka maanta shisheeyihii hore dhaamo. waa waqti shaki kaa gelayo in la waalan yahay iyo in la miyir qabo. waa waqti meelaad ka cararto iyo meelaad u cararto midna aanad aqoonin, cid aad ka cararto iyo cid aad u carartana aanad garanaynin. waa waqti cudurro badan haddana geeri hilmaan badan
waa waqti dhimasho badan haddana murugo la'aan badan. Habilaawe oo sidaynu sheegnay soo baxday 20kii bishii 6aad sanadkii 2015 waxay tidhi heensaynta maansada kuma halabsi boodine hafar uma tidcaayee waxaan hibanayaa jira. Waxa heeladaydiyo yahay hogo tusaaluhu huga aan ka qaaday ee sawdigii guyaal hore garta iyo hobsiinada bulsho yahay ku hodanaa. Sawdigaan hungurigiyo hambo iyo cad quureed hoo aan u dhiman jirin sawdigii han weynaa. Markay hawshu adag tahay sawdigii hormuudkiyo diran jiray haldoorada. Isbaxlaystiyo colaadaha sawdigii hujuunkiyo hootada lahaan jiray marka ay heshiis tahay sawdigaan halayn jirin ee u heelanaan jiray. Immikiyo hadeertadan habrashadu lib maaha haysu qaadan hebediyo inaad tahay hadhiine hadda weli dad baa tahay. Dad wax heli karaa tahay, dad wax hanan karaa tahay, dad wax hubin karaa tahay, dad wax huri karaa tahay, haye odhan karaa tahay, maya hidin karaa tahay, dirir hurin karaa tahay, nabad hori karaa tahay. Hawsar iyo bilaawiyo hoobashada garnaylada hubka culusi maaha caqli hagisla weeyo iimaanku horaye hamigaaga weyne. Hibashadaada maaree higsigaaga meelee helin iyo u yeel marin holli guusha kula siman haaneed deeqda kuu taal hadba geedka hadhacaa adigoo hargeli karaa hardacaarka ha u kicin. Intay tala hog leedee hoggaan qabasho leedaa horraynteedu wacantee hibadaadii fiicnayd himiladaadii toosnayd hoodaadii roonayd ka tun haybadaadii habaaskii awaaraha. Horseedkaaga ha u diran bulsho yahay ku heeraha marar badan ku hoojaha habqankaaga badiyaha hoos kuuma eegaha hedhowda jirkaagii hurin u qaybshaha haybkugu dilaalaha quud lagu hogaanshaha been lagu hanuunshaha. Ninku hoojay marar badan hoodaale khayrliyo howlkar loo jabaayiyo hayin lagu badhaadhiyo halyey lagu badbaadiyo hoodaale ha u qabin. Maasada nin hiifiyaha gardaamo badanow adigay hunuushow adigay hanaashow hoji ay ku leedahay xaajo hoombinayso hakkibay ku leedahay hamuuntaada yaabka ah. Hanti looma waasho hurmo maaha noloshuye ha u dhiman sad maalina ha ku jabin hinaasaha nafta haybad beeniyo hungo laguma soore sida hororka ha u socon sida hoori ha u dhiman. Hadba siday ku roontaa tale lagu hogaanshaa lama marin habaabe ilaadaada faalle. Hanku damac la yeeshiyo haarahan liidkiyo tilmaamaha ha coogiyo huhaada buuqiyo hororsiga xilmaahe hidde lagu arooriyo halbeeg lagu qiyaasmiyo xishood lagu hagmaa jira dareen lagu hirtaa jira ku hay maanka taladaas. Barnaamijkeennii kasmo iyo kaskaaga intaas buu inoogu egyahay. Inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan waa anigoo Maxamed Kaysa oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.